هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ وحكي مدي في كتاب ابن عساكر تاريخ دمشق إن عمر رضي الله عنه أو كسر نقنقون شري guri ay ku nooleed haweeney daah haweeney indhala oo aan haysanin cid caawisa habeenkii ayuu iman jiray Umar ibn al-Khattab haweeneyda gurigeeda wuxuu qaban jiray wixii ay u baahan tahay in loo qabto wuxuu diyaarin jiray biyaha wuxuu soo dhaweyn jiray cuntadeeda iyo wixii kale markaasi ay u baahan tahay عمر isagoo shaqadaas wada ayaa maalin dambe wuxuu arkayaa iyadoo oo shaqadii looga soo hormaray shaqadii haweeneyda uu qabanayay oo ay cid kala qabatay iyadoo biyaheedii la diyaariyay oo cuntadeedii la diyaariyay oo gogosheedii loo habeeyay ayuu imanaya leedahay Umar uu la yaabay ciidan ka soo hormaraysa ee shaqadii uu qabanayay haweeneydaasi daadaasi qabanaysa wuxuu isku dayay Umar ibn al-Khattab inuu ka soo hormaro waqtigu imanayay balse uu ogaado ciidan ka soo hormartay ama isaguba uga hormaro fajaaha ghayra marratin kay la yusbaqa ilayha in ka badan hal mar ayuu yimiday si uu ogaado bal ciidan ka hormaraysa ama aan looga hormarinba wuxuu arkay Umar gurigii oo ka soo baxayo nin afku u duuban yahay oo aan wajigiisu muuqan falamma kharaja amsakahu biyadihi ninkii markii uu arkay ka soo baxay gurigii gacantiisa ayuu qabtay faqala astahlifuka billah an takshifa li an wajhik inad wajigaaga itusto ayaan ilaahay kugu dhaariyay itus wajigaaga ninkii wajigiisa ayuu furay فإذا به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر روحا وجهه ودوبيه وأبا أمير المؤمنين وأبو بكر الصديق عمر يا أبو حكيري يا خليفة رسول الله رسولك إلهي خليفتي سيو ما سبقناك إلى عمل أنك أقهر مرني مجرته إلا وجدناك سبقتنا إليه وحن أركينا أذيك أو نوغهر مري أو نوغ ديري أو نوغ بضنيا أبو بكر انتو دولة عدية يا وحكوري يا عمر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هل كان وماشي لقد ترتمي ماشي لسكديني ماها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون sidaas ayay hayeen walaalayaal dadkii salafkeena ee wanaagsana ee wanaaga ku tartamayay dhaqankooda